su-aashii ugu horeysa sheekh waxaan qabaa su-aal lacag kayd ah oo aan meel ku shubtay oo aan ugu talagalay inaan ku ilaashado biilka caruurta iyo waxbarashadooda ma ka bixin karaa sako su-aalo eg baa jirta dahab meel ii yaallo oo kayd ah oo aan xirnayn ma ka bixin karaa sako ma lagu leeyahay isagana labadaas su-aal wis shabaan الحمد لله waxaan u malaynayaa su-aalihii ardayda maaha su-aalihii xataa dumarka dhinacooda ardada maaha su-aalihii ardada maahaan u malaynayaa way ardadu weli mayna gaadhin inay dahab kaydiyaan iyo inay caruur lacag biilo meel ku kaydiyaan ma gaadhin baan u malaynayaa marka su-aalaha kale waxaan dhihi lahaa su-aalaha dambe kuwa ardada hormariyo kuwa reer magaalka gadaal mariyo ilaan maanta ardaydaa iskale baad dhahdeen hadday ardaydu leedahay waa mudnaanta iyaga su-aalahooda in la siiyaa dahabka kaydka ah hadduu 85 garaam dhan yahay zakaa lagu leeyahay hadduu 85 garaam gaadho maalintaa uu 85 garaam gaaray buu sanad u bilaabanayaa markay maalintaas sanadka kale maalinteeda la gaaro haddii uusan intii ka yarayn 85tii uu dhan yahay ama ka badan yahay waa la qiimeynayaa wixii uu lacag gaaro yaa boqolkiiba 2.5 laga bixinayaa 2.5% baa laga bixinayaa lacagtuna waa isla midii oo kaleo hadday zako gaadhay sanad baa u bilaabanaya sanadkaa markii sanadkiisa la gaaro intii haddii ay dhan tahay ama ka badan tahay iyadana 2.5%gii baa laga rabaa hadday ka yar tahayna zako laguma laha dahabkuna hadduu hadduu 85tii hoos uga dhaco isna laguma laha haddaad rabtaan dahab inaad kaydsataan 81 meelaha ka dhiga garaam kaydsada haddaad ka cararaysaan zakada lacagtana haddaad wax kaydinaysaan wax dahabkaa 85 agooya wax ka yar iyadana kaydsada waxooga ay ka dhiman haddaad zakada kala cabsanaysaan oo kala cararaysaan wabillahi towfiiq jazaak allahu khayran sheekh su-aalihii dhallinyarada sheekh maadaama la yidhi khudbasirada waa xaaraan ardayna aan nahay oo meeshii aan joogno waxaa jirto gabar aan xiriir la leeyahay gabadhaa haddii aan dhaho waalidkeed waa ka guursanayaa nooma suurtagelayso waalidkii ma ogolaanayaan ma mehersan karaa oo hoos ma ka mehersan karaa hadday uur yeelatana carruurtaas maxay noqonayaan alxamdu lilah waa xalku wuu fudud yahay ma dhib badna xalku waa fudud yahay sheekh cabdiraxmaan qaasim iyo towxiidna inay qayb ka qaataan baa la rabaa horta ha la dhuumane la xiriira waalidkii hadduu saad filaysaan noqonba waayo oo idin yeelana alxamdu lilah si la rabay way reerkaasi wanaag iyo nabad buu ku dhismay haddii waalidkiisaad ka baqaysaan uu noqdo ragga markaska waxaan ka codsan lahaa ka ergeeyaan waa tallaabada labaad oo ha yidhahdaan dadku dhallinyarada iyo hadday isguursanayaan ilaahayna isu xalaaleeyey soo fududee hawsha shalayba kuwa ay soo fududeeya dhaheen oo soo fududeeyey bay nooga sheekeynayeen masaajidku shalay waxay nooga sheekeynayeen kuwa sidaasoo kale odayga intuu yar adkaaday oy masaajidku la hadleen soo ogolaaday oo soo fududeeyey tallaabada labaad hadduu odaygu diido ha qodbasiraynine sheekh cabdiraxmaan magaaladu soo qaadi ma lah qaadiga u taga qodbasirada sax maaha haddii weligii uu sidaa ku meermeeriyo qaadiga mas-uuliyaddii walaayada iska helay weli baxaya qaadigaana mas-uuliyadda iska leh luuqluuqiyo wadaadaan la aqoon ha aadine qaadiga taga qaadiga gabadha ka soo meheriya meherkiinana xalaal wey sidaa ma idin deeqdaa qaadigu miyuu diidayaa maxaa luuqluuq ka rabtaan marka xalaal iftiin baa la qashaa duqa la hadla sawir xun baa laga yaabaa inaad iska haysataane hadduu ku yidhahdo wiilkay soo dhowow khayrallaha ku siiyo waxba kama qabo yaan kugu wareejiyaa walaada hadduu ku yidhaahdo soo kama fiicna gabadhii waa limeer xaday haddiiba intuu adiga ku yar diido
masaajidku la hadlaano waa yahay adeer uu ku yidhaahdo soo kama sii fiicna labadaa haddii la waayo cudurdaar sharci aad leedahay qaadigiina waa kuu joogaa halkaa qac kaga siiya bilahi towfiiq jazaak allahu khayran sheekh su-aashan sheekhow gabar baan saaxiib nahay joogta america waxayna iga bixisaa jaamacadda waxaan ku balannay mustaqbalka inaan guursado laakiin kuma qanacsani dembi bay igu tahay diinta maxay ka qabtaa alxamdu lilaah masalada aad baad ugu guuxdeen inay aada u jirtaan u malayn qofka muslimkihii waxaa waajib ku ah wanusxi likulli muslim qofka muslimka inuu daacadu yahay beenta iyo ballanfurkuna waa dhaqan munaafiq weeye xoolahaas waa xaaraam ay kugu siinayso inaad ballan guur leedihiin ay kugu siinayso hadaad aadan daacad ka ahayn waxaad samaysayna waa munaafiqnimo xoolahana xaaraam wey gabadha muslimka ee walaasha ah ka waran adiga walaashaa kula dhalatay saa haddii lagu sameeyo ka waran adiga haddii lagugu sameeyo guurku musuq maasuq ma wanaagsana qofka muslimkaana lama mardabeeyo lama khiyaameeyo khiyaamada iyo mardabadu ma wanaagsana haddii aad waxbarashadaadii musuq maasuq iyo mardabo qof ku samaysana adduunyadan waxaa badan adna mid kaa goysay in qoorta lagu geliyo aad bay u badanta dulmiga iyo baqyiga iyo xadgudubkan oo kale aakhare intaan la gaadhin dembigeeda waxyaabaha cuquubadooda adduunka ilaahay soo dedejiyay ka mid tahay inuu dad baa rag baan aqaanaa iyo dumar labadaba saasoo kale sameeyey balaayo kale ilaahay qoorta u geliyey oo markii weydiiyo aan nidhi dee wixii aad samaysaa lagaa goynayaa qof baad saa u samaysay qof baad dulmi ka gashay qofkii qofku aaminay oo wanaagsan buu ahaa isagoo ilaahayna kuu barakayn lahaabaa laga yaabaa xaggaad ka wareegtay musuq maasuq iyo khiyaana kugu jirtay boolo khiyaanaha qodin bay dheheen haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaana mooye xoolaha saa gabadh iyo wiil toona aan daacad laga ahayn in loo sheega daacad iyo guri in laayaho lagaga qaata ay xaaraan weeye xoolahaas ma bannaana nimayo ilaah intaa ka yaabtaan qofka damiirkaana ma bannaana waxaadan raalli ka noqoteen walaashaa iyo walaalkaana raalli uga noqoteen qof kaloo muslima ha ku samaynin khayr allah idin siiyo haddaad iska ilaalisaan waxaasoo kale iyo xumaatadu ilaahay cimrigiinna iyo cilmiga aqoontaad baranaysaan wuu idiin barakaynaya haddii kale aqoon iyo shahaado aan baraka lahayn oo fasaad iyo khasaare mooye wax kale aadan ka qaadin ay kugu noqotaa dhici karta wabilahi towfiiq jasaaka allahu khayran sheekh sheekho waxaa jirta gabar aan jeclahay oo kambaale joogta waana heshiinay inaan reerkooda ka doono aabbaheed waxaa jirta gabar ka weyn oo soomaaliya joogta waxay igu xujaysay ilaa gabadhaa ka weyn ay guursato inaan anna guursanaynin ma shareecadu maxay ka qabtaa alxamdu lilaah dabcan waa dhaqan soomaalida qaarkeed leedahay in gabadha weyn oo joogta tayaraan la guurinin soomaalidoo dhan kama dhaxayso dhaqanna uma wada aha soomaalida qaybo badan qof walba calafkii wey in la isku xidhana waa khalad diin ahaan ma bannaana sababtoo ah qofkan kale weyne leeyahay ha guursato ilaahay inuu qoray inay guursato yaa waru haya goortay guursan doonto yaa waru haya gabadha yari way guursan kartaa way u bannaan tahay haddaba cidda kugu xidhay iyada hadday tahayna dee waxay shuruud xihan iyadaa khiyaarkeeda leh hadday tahay waalidkana intaan haddaai sheegay unbaad maraysaano waalidka ergaraha laydinka geeyo hadduu ku sii adkaystana qaadiga taga hadhow carruur markay dhalatana isagunbaa awow isaga noqonoo dhibaato ma laha wabilahi towfiiq jasaaka allahu khayran sheekh waxaan weydiinayaa sheekha waxaa ku soo badanaya ardayda dhexdooda oo la sameeyaa markuu arday qalin jibiyo oo baxayo in loo sameeyo xaflad rag iyo dumar isugu yimaadaan guryaha lagu qabto muusig lagu sameeyo xafladdaasna loo bixiyey qofkaa lagu macsalaameynayay baybay
sharcigu muxuu ka qabaa? alxamdulilah. weelkaamna ma jirtaa? xaflad weelkaamna ma jirtaa oo markuu yimaado loo qabto ardayda cusub? dabcan mid mise mid, ama arday timid iyo sanad cusub ha noqdo arday timid oo la soo dhowaynayo, ama qof safraya ama ha dhammeeya jaamacaddii ama yaanu dhammaynin oo dhexdaa kaga tago, qof tegaya oo loo sameeyo oo la macsalaameeyo mabda u dhib ma laha. cibaadana mehe iska caadaad weeye, laakiin waxaa la samaynaya waa inuusan dembi noqon. muusik iyo khamri iyo xaaraan iyo niika iyo rag iyo dumar isdhexyaacayo xaaraamihiyo dee sideedaynan u bannaanayn. ama xaflad ha noqoto, ama xaflad la-aan ha noqoto, ama soo dhoweyn ha noqoto, ama mabixin ha noqoto, ama waxaan labadaba ahayn ha noqotee wixii xaaraan aha xaaraan wey. haddii wixii xaaraama laga ilaaliyo, qofkiina maadaama uu safrayo haddii la rabo waxyee nooli la isugu dardaro, hadduu yimaado la soo dhoweeyo oo meelaha la kala barbaro oo waxooga la marti qaado, intaas isa soo dhoweyntii isa sagootintu dhibaato ma laha. haddii aan dembi kale lagu darin ama qaabka loo samaynayo aanay noqon qaab dembi ah oo dee aad wada garanaysaan, intaasaa dacwo iyo cilmiya soo dhegaysanayseene inta dembigeed garanaysaan ka daaya. khayr allah idin siiya. billahi towfiiq. jazaaka allahu khayran sheekh. sheekh waxaa jirto su-aasha wuxuu leeyahay, waxaan degannahay meel hoostela, ardaydana wada dhan yihiin, waxaa jira rag iyo dumar aan walaalo ahayn oo haddana u macaamila sidii dad walaalo ah ama dad isqaba oo gacmihii iska salaama, qaarkood hab isa siiya, muxuu ahaato guryaha waqti dambe ugu gala, ilaa waqti dambe gurigeeda la jooga gabadhii, iyadoo gabadhii wax hagaajisanaysa guriga dhex joogo. haddana aad u malaynaysid dad walaalo ah, dad walaalaan ahayn oo ajnabi kale ah. marka gabadha guryahooda in la galo sidaa loola dhaqmo maxay qabtaa diinta? alxamdulilah. waa wixii haddaay aan ka soo hadlayay ee dhallinyarantii weye. wiilashiiyo gabdhuhuba dhul shisheeyana waad joogtaan. dhul shisheeye haddaad joogtaanna marna taariikhdiinna way qormaysaayo intiinaa wada joogtaayo markaad noqotaan midba midka kale wuxuu ahaa uu sheegi una ka sheekayn. gabdhuhuna ilaahay ha ka baqaan, wiilashu ilaahay ha ka baqaan. labadii israbta oon soo tilmaannay ha isguursadaan. labadii kale dee dadkii ajnabiga bannaanka ha kala maraan. gabdhuhu gaar ha u degaan, wiilashuna gaar ha u degaan. labadii iyagu walaalaha ama isqabee wada degayee meel wada joogayana dee diintu waa u bannaysay. inba qaybay isu bannaysaba oon inay wada joogaan ama gacan isku salaamaan way bannaantay. laakiin wiil iyo gabadh ajnabi ah inay gacan isku salaamaan, dhabannada iska dhunkadaan, ama laabtaba isku qaadaan, ama garbaha iyo gacmaha isqabsadaan, waxaasoo dhan xaaraan iyo dembi weeye. waxa xigana wax ka xun baa dhacay weeye. gabdhahana mid baan rabaa inaan dhaho, labadaba dhibku xaggiinnu u badan doonaayee jooga. haddii waxun dhaco, waxa uu wax ku hari doonee laga yaabo uur baa ku soo baxaya la dhihi doono iyo gabadhnimay weyday, idinka weyee jooga. waa mid labaadee waxaa ceebtu ku badanaysa idinka weeye. wiilkaa gabadha garabka haystaay berri haddii inuu guursado doono tii ma rabo. taasi waa mid fadaraysanoo gacan kastaa gaadha iga daabuu ku leh. rag badan baan aragnayoo duurkaana wareega, gabdhahana fadareeya, markuu guur rabana kuwaasoo dhan mid kama rabo. wuxuu leeyahy berri markaan ka taga gacan kale iga dambaynee bala ku dhacdaydu lama kala lehe iga daa. isagii kula socday hadhow markuu kaa tago ku ay qaraabo yihiin ama saaxiibbo yihiin oo guurdoona hadduu arko, taa waa naag xunay iska daabuu ku dhihi. oo maxaa dhacay? lama kala lahoo gacan walbaa gaadhuu leh. de waa isagii ugu kuu soo gelayay, war taasi war wax xishoota ma aha buu leeyahy. haddii lay gabadhaa ka fiican ka waran, taasi waxaa ilaahay ma taqaanuu dhih. isagii waxaa samaynayey baa ku caay, cidduu arkabana ceebtaada u gudbini. laakiin markaad tidhahdo war iga leexo, waxaan ma wanaagsanee, wuxuu leeyahay qofkuu berri arko waraa gabadha gabadh fiican weeye ogow.
gabadha gabadh fiican wayoogow isagii aad cayrisay soo dhowayntana wuu kugu caayi cayrintana wuu kugu ammaani marka gabdhow haddaad ammaantii iyo magacii wanaagsanaa rabtaan wiilashan cayriya si ay idiin ammaanaan oo mid kastoo guur rababa ay idinku soo tilmaamaan oo idin yidhaahdaan gabdhahaasaa fiican oo mustaqbal leh laakiin hadhow waad noqonaysaan xaggii baa lagu noqon gabadhan reer Uganda ahayd baa la leeyahay nin baa dhihi gabar saasoo reer Ruusan waraatee waa ina hebel allah waraatii xumayd weeye waraaniyo iska jir wuxuu waraa gabadha gabar fiican weeye meel kasta wuu ku ammaanay haddaad cayrisay wiilka laakiin haddaad soo dhowaysood laabta habsiisaay waxaa weeye bakhaayaddaa nin walba gelaya weeyuu ku leeyahay hadhow marka gabdhow dembigii waxaa dheer ceeb iyo magac xumaa dheer dhallinyaroyna raggaasaa u wareegayaay hadhow markii la soo noqdo reeraad gabdha ka dooni doontaan war wiilkan yaa yaqaana war waa mid fadara ah haddii la yidhaahdo adeerna dhaaf baa lagu leeyahy gabadhna ku siin mayna balaa ku qaadin wabillahi towfiiq baarak allahu fiik sheekh su-aasha muxaadaradaadii baa lagala baxay sheekh islamic boyfriend baa sharaxda noo sheegtay noo sharax alxamdulilah waaba idiin sharxaan moodaye waxaan ka sheekeynayey sooyada un ma ahayn waxaa la yidhahdaa boyfriend iyo girlfriend waa wiil iyo gabarh saaxiiba wax walbana uu dhex maro meelna ma degana ilmana ma dhalaan soo maa meel gaarana ma wada degana sheekadan waxaan ku bilownay maraan westernka yurub joognay daayartii soo kacday guurna waa u baahan yihiin weli qaarkoodna dugsiyo saray dhigtaan haddii waalidkii la diiday guurkiina duurgal badan baa dhacay marka fikraddan soo jeedin ee wax badan lagu faa'iiday waxay ahayd fikradda islamic boyfriend iyo girlfriend waxaan wiilkiiya gabadha israba isu guuriya labada kaafna isticmaala guriganna hay isugu yimaadaan gabadha gurigooda imtixaanka qol ha ku wada diyaarsadaan hadday rabaan ha wada seexdaan marna gabadhu ha tagto guriga wiilka intay isugu tagaan ha ku wada diyaarsadaan imtixaanko hadday rabaan qolna ha wada seexdaan kolaba wixii way samaynayaane iyagoo xalaala oon dembina ahayn lana dhuumanaynin oon ceeb ahayn ha sameeyaan casharkana ha wada diyaarsadaan haddii waxbarasho inay ka haraan iyo carruuraad ka baqdaanna waxba labada kaaf isticmaala horta asalka sheekadu saasay ku timid waa fahanteen baan u malaynayaa hadda halkanina ama xaafadaha deganba sidaa ha la sameeyo ama dhallinyaradiinnan hadda weydiinaya khudbasirada iyo jaamacaddu haddiiba aad si saxa isu guursataanoo waanu soo marnaye gabadhuna meesheedii iska deganaata wiilkuna meeshii iska deganaado oo markii jaanis iyo fursad la helana meelaha laga soo jiireeyo soo isla iyadii un maaha wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayran sheekh ardaygan wuxuu soo qoray waxaan ku weydiinayaa sheekh waxaan la sheekaystaa gabadhuna waxay u socotaa dibadda inaan mehersadona wax aan ku mehersado oo qarashaada iima saamaxayo reerkoodana uma sheegi karo dibadday u socotaa maxaan sameeyaa hadday hal mar tagtana xiriirka ma sii soconayo alxamdulilah alxamdulilah horta midaan ka saxo ninkani haddii gabadhu aada nin wanaagsan tahay xiriirku inuu sii socdo ma diideyso dhacdooyin badan oo wiilal iyo gabdho heshiis ahaa oo gabdhihii dhoofeen oy sanad kadib markay travel documenti qaateen soo noqdeen oo kadib la isguursaday oo reer la noqday oy haddana markii fasaxii dhowr bilood u dhammaatee noqotay baan naqaan hadda markaan soo baxayey buu midaan qaraabanahay ii sheegayey horaanta bisha May inay gabadh Maraykan ka imanayso markay halkan ka dhoofaysay ay heshiis ahaayeen inta aan xiriir lahaayeen marka adiga horta gadaalka cabsiga ka daa haddii aadan adigu wax isku ogeyn markay xaggaa lagaa fogaado lagaaga tashado ama aadan qabintuhuna sheekada hadda lagula wado inay been iyo bug tahayo aanaad lagugu qanacsanayn
dee haddana aad lagu rabinna iska badaa gabadhan faraha ka qaad haddii aad si fiican gabadhu kuu rabtana xiriirku wuu iska socon karaa dibna waa iska guursan kartaa saasoo dhacdooyin saasoo kaleoo fara badan oo dhacana mar kaleba way jiraan horta ee ha ka dhigin marba hadday tagta xiriirku inuu go-ayo hadday adiga gaar kugu tahayna cillad xaggaaga ah jirta dhaliil baa jirta xaggaaga ah si kastaba ha noqotay haddaad rabtay gabadha inaad guursato way dhoofaysaa iyo reerkoodaa socda iyo garawsho maaha war maaha gabadha reerkooda weydiiso hadday reerkooda kuu diidaan ha lagaa ergeeyo haddii ergadii diidaan hadday iyadu raalli ka tahay qaadligaad aadi kartaan warku waa cad yahay laakiin intaa wax ka dambeeya musuq maasuq iyo meherxad iyo waxba ku asixi maayo wabilahi towfiiq jazaaka allahu khayran sheekh waxaa jira wakhtigan hadda aan ku jirno isterka ah oo fasaxyada ay ku jiraan gaalada waxaan leeyahay buu yidhi deris fiican deriskana waxay ii keenaan cuntadaas oo ah dabaaldegga iyo xafladdan ay u dhiganayaan waxa ay qasheen ama cuntada ah bay ii keenaan cuntadaas ma cuni karaa markii laygu keeno guriga alxamdu lilaah wixii cunno laydiin keeno ama lacag laydiin keeno ama dhar iyo alaab laydiin keeno wixii aan isagu xaaraan ahayn waad cuni kartaan waa qaadan kartaan waxaan uga jeednaa dhalo khamriga laguu keenay sigaara laguu keenay cunno xaaraana lagu keenay hilib xaaraan lagu qalay baa laguu keenay ciid iyo ciid la-aantoona dhib ma laha lama ogola laakiin waxaa laalay wixii hadiyadahay idiin keenaan ama istar ha idiin keenaan ama krismas ha idiin keenaan ama new year ha idiin keenaan iyo sanad cusub waxay idiin keenaanee silkiisu xalaal yahay waad cuni kartaan xilligii saxaabada radi allahu canhum waardaahum cali bn abi aalib xila martiqaadka iyo hadiyadda loo keenay iyo caaisho iyo ciiddii nayruuskay samaysan jireen nimankan furusta ama bershiyanka ay samaysan jireen way qaadan jireen sanad kastaba war bil kastabay nayruus ka dhigtay dheheen hadiyaddeedana noo keena wixii xalaala waad qaadan kartaan haddii bokas laguu keeno dhalo khamri iyo wax xalaala ku jiraan dhalada khamrada unbaad qashinka iskaga dari oo iska daadin inta kale xalaashaana waad ka qaadan waad kala bixi dhibaato mala bilahi towfiiq sheekh baarak allahu fiik su-aasha ku xigta waxay tahay xafladaha qalinjibinta ah ardayda marka loo qabto laysugu yimaado waxaa la shidaa heesta calanka kadibna waa loo istaagaa oo ardaydii iyo dadkii ka soo qaybgalay xafladda kulli way istaagaan iyagoo gacanta saaranaya xabadka maxay diinta ka qabtaa alxamdu lilaah wuxuu waa laba qaybood waxna waa wixii muusig iyo wixii lamida waxyaabaa muusig iyo lamidka ma bannaana ama qur-aan ha lagu daro ama gabay ha lagu daro ama hees ha lagu daro ama haasaabo kale ha lagu daro wax kastoo muusika lagu daraayo way xaaraantinimaysaa iyadaa xaaraana wixii kale la qaadayaay wuxuu ku xihan yahay midhuhu muxuu yahay ma wax xunba se wax fiican wixii wanaagsan ama aan wax xun ahayn way bannaan tahay qaadidiisii ama dhegaysigiisi iyo dhehidiisu wixii xun ama dad isku diraya ama dad caadaya ama wax xun dhiirigelinayo ammaanaya waxa midhihiisu xun yahayna ma bannaana saa darteed buu nabigu ku tilmaamay waxyaabahan ama gabayga ama erayadan suugaantihi hadalkay la mid yihiin kiisa xunna ka xun buu la mid yahay ka fiicanna ka fiican buu la mid yahay wixii hadal ahaan u xumaa haddii suugaan laga dhigana wuu xumaanayaa wixii hadal ahaan ku fiicnaa haddii suugaan laga dhigana wuu fiicnaanayaa laakiin haddii muusikana lagu darana wuu xaaraantinimoobi hadday masaladu daawasho tahay oy dumar qaawanjilayaanna dee dumarka qaawan hees iyo heesla'aantoona ragga daawashadooda uma bannaanayn hadday heesayaan iyo hadday calan qaadayaan hadday haasaawo caadiya samaynayaan iyo hadday wax kala samaynayaanba dee raggu dumar qaawan inay eegaan ma bannaanayn marka hees calan weeye bannayn mayso hees qaran weeyana ku baxalaal ku noqon mayso qaranku isagaa laga rabaa wixii uu astaan iyo calaamad ka dhiganayo iyo dadku waa dad muslina qarankuna qaran muslina weeye inaanu islaamka khilaafin qaranka laga rabaa ee islaamka lagama rabo islaamku qaranka inuu waafaqa lagama rabee qaranka islaamka inuu hogaansamo laga rabaa ka masalada ayayna naga qasmin innagaa laynaga rabaa inaan cadaadis iyo bareshar ku saarno dowladaheenna iyo qaranka aynu sheeganayneen intaa u riyaaqsannahay een u dabaaldegayno inaan nidhaahno sax
qarankayagu waan jecelnahay iyo dadkayaga iyo dalkayaga wixii dhiirigelina waan jecelnahay laakiin macnaheedu ma aha qarankayagu waa inuu diintayada qadariyaa u xurmeeyaa waa inuu waxa qaranka astaanta u ah wax diintayada aan ka hor imanaynin noqotaa biri qarankeenna haddii calaamad saliib iyo kristan istallawa looga dhigo astaan looga dhiga miyaan yeelaynaa maxaa sababa dee annagu kristan manen muslim baana haddii xidigta yuhuudda looga dhigana yeeli mayno sax qaranka annaga iyo dadka iyo dalka annagaa iska leh annagoo diintannada haysanaan dalka naga leenahay dalku nama laha annaga saas darteed dalka annagu haddaanu leenahay dowladdana leenahay waxaan ku leenahay annagoo muslina waa inay muslimnimada iyada dowladdu ku tixgelisaayo astaan muslim ay noqotaa dunyadeeda adduun badan baa heesta iyo astaan qaran leh qaar baan muusig iyo waxba ugu jirin marka waxaan rabaa inaad ogaataan mabda'a ah isma diidayaan astaan buu qaranka iyo dalku leeyahay wax lagu xasuustuu leeyahay anigana waddankayga iyo waan jeclahay iyo xaaraan baan samaynayaa qasab maaha waddanku waa inuu xaaraanta ka daayaade ilan dadka iyo dalku waa musline haddii laakiin sidii gaalkii layla dhaqmo dee waddankii iyo diintii kala dooray noqonaysaa anna ma doonaya halkaa in la gaadhsiiyo inaan labadaba isku haystaan rabaa diintii iyo dalkiiba inaan isku haystaan rabaa diintii iyo dalkii aan laynoo kala qaadin sarifka aan diidno aan dhahnaya naloo sarifin annaga diintii iyo dalku hal baakaj bay annaga noo yihiin waa inay isula kaaya socdaan waa inay isku dhan isugu haya jaan qaadaan waa inay isku bacya kartoon noo wada geli karaan laakiin ha noo kala wadina saa darteed heesta qaranka iyagaa laga doonayaa cidda qaranka astaantii heesta u samaynaysa inay waafajiyaan midhaheeda qaabka loo samaynayo cidda qaadaysa iyo qaabka loo bandhigayo inay diinta waafajiyaan baa laga doonayaa saa darteed midhuhuna xumaan iyo samaan buu ku xihan yahay qaabka loo soo bandhigayana waa inaan muusigna lagu darin dee meel fagaari iyo rag daawanayaanna dumar qaawan waa inaanay jilin inaa haddii laga daayaayey heesta qaaditaanka tix la qaado oo waddan iyo lagu ammaanayo oon dembi ahayn dhibaato ma laha wabilahi towfiiq jasaak allahu khayr sheekh su-aashan waxay leedahay guurka la sheegay oo hadda aad ka dhawaajiso in la guursado oo ardayda ay isguursadaan oo aad tidhi xabad kaniinin hala cuno ma waysan dembi ka weyn la gelaynin oo ah iyadoo zinadii laga cararayo inay ilmo meeshaa ku dilmaan alxamdu lilaah horta dabcan guurku qasab meahee waa ciddii ay dan ka maaransiin weydo ama dookhiisu wuxuu ka helay guurku waa laba dhalinyara sooma taqaanaan dan guursi iyo dookh guursi waay sidaa muu taqaanaan guurku waa laba dan guursi mid dan iyo duruuf guura iyo mid dookha dan iyo duruufta guurka ah rag iyo dumarba way qabsataa gabar baa ninkeedii dhintay dumaal bay noqotay cidda dumaalaysa ma dookheedaa maya duruuf waay nin baa halkan jooga yurub iyo maraykan bay ka haysaa islaan meelaha jirta ama u socota oo hadda sida uu lahaa niyad uma haya laakiin inuu ku dhoofo uu rabo hadduu guursado ama gabadhuba nin sidaasa ay guursato laakiin niyadaynan u haynin ma dookh baa mise waa dan guursi waayo qofka meeshan yimid ee noloshu ku adkaatay ee meeluu cag dhiga waayey ee waxoogay bal meeluu ku gabada raadinayaay guurkiisu ma dan baa mise waa dookh guurku dan iyo dookh waayo marka ninka inuu guursado raba waalidkii oo waayeelanahaye hooyadii oo kale cid kale uu ku aamino gasna shaqo iyo mashquul badan gabadhay eedde iyo habaryaar u tahay inuu guursado raba si ay hooyadii u dhaqaalayso guurka ma dan baa mise waa dookh dan waaye marmar dookhii wuu waafaqi karaa laakiin guurkaasoo kale gabadhay habaryar iyo eedde u tahaa la keenay gabadhan unbaa hayn kartaa la yidhi inaad gabadhaa guursato waxaa dhici karta marar badan dookhaagii maaha laakiin hooyada iyo qofka hayntiisi iyo dantaas baad u guursan gabadhuna saasoo kale inay ku dhacdo caruur bay haysataa waxoogay caruurtana dan iyo duruuf baa iska jirta cid biilaysaa iyo dad iyo ma haysato
nin waxoogay iska haysta oo marmaruun isaga yimaada waxoogay ilmaha iyo nafteedana biil ay uga hesha hadday guursato ma danbaa mise waa dooq guurku dan iyo dooq waaye marka saas darteed guurka dhallinyarada ay isguursanayaan danna waa noqon karaa dookhiina waa waafaqi karaa markaad isguursanaysaan marka kiniinka ha la cuno marka la yidhaahdo ilmo dilmi ma jiro waayo ilmuhu maba guntaminba dawooyinkani waxay ka hortegayaan haddii kaafka kiniinka aad qaadataanna inay wax guntamay ka hortegayaan haddii aad qaadato kaafka kale muxuu ah magaciisa kaaf kale maxaa looga jeeda waa ku dhicilaadihiine isagana ide ilmaha ma guntamayo masaladaasi masale la yidhaahda weeye tan iyo wakhtigii nabiga ay jirtayoo masalatulcasli baa la dhihi jiray saxaabadu marar bay reerahooda intay la kulmaan bay markay xilligii biyuhu ay imanayeen shahwada la gaaro bay bannaanka ku daadinayeen markaasay jaabir iyo abu saciid bay yidhahdeen fii saxiixi muslim kunnaa naczil waalqur'aanu yanzil qur-aankoo degaya baanu saa samayn jirnay walow kaana mima yunhaa canhu lanahana canhu lqur'aan haddii waxaan la ogolayn tahay qur-aanka naga reebi lahaa nabiguna alai slam markay u sheegeen isogaaday wuxuu yidhi ama bannaan ku quba ama ha ku qubina nafti ilaahay qadaray inay dhalato way un dhalan nafti ilaahay u qoray inay dhalato way un dhalan laakiin waa xaaraan iyo waa dembi ma dhihin ilmo guntamay oo calool galay soo ridistiisiya way kala duwan tahay ka hortagga way kala duwan tahay walidaalika intaa keliya ma ahee garabka wax la gashadaa jira soo ma taqaanaan waa gartay dhallinyarada dhallinyarada keliyana maaha waxaa sameeya systemkan la yidhahda family planning dad badan oo reero iyo caruura la sameeya duruufo kala duwan hooyooyinka qaar baa ilmaha lagu soo qalaa markaasaa leedahay intaasoo sano uur ma qaadi karto haddii kale minkaa intuusan si fiican u bogsanin ilma hadduu galo uurku weynaada minkuu qarxayaa meeshii tolmihii baa qarxayoo dilaacaya qaar baa la yidhaahdaa qaar baa hooyooyinka tabar daran oo ilmihii inta muddo ah inay soo kabata u baahan awooddeedii iyo tabarteedii qaar baa meel cidlaya qurbo degan oo ilmihii inay yar kala koraan maahane say u kala haysa aan garanaynin siyaabaha iyo siyaabo kala duwan bay dadka family planninka sameeya laftoodu tanoo kale dadka xaasaska iyo caruuraha leh way sameeyaanee keli idinkuma aha wabilahi towfiiq jazaak allahu khayran sheekh su-aashan waxay leedahay hadda ka hor anigoo xaamilo ah oo qof dumar ah ayaa ninkaygu bishii ramadaan igu yidhi hasoomin xanuun jiray awgii waxaan kaa bixinayaa fidro haddana waan kala tagnay ma aqaano inuu bixiyey ma laygu leeyahay soonkaas haddii laygu leeyahay ma igu labo jibaarmayaa soonkaas alxamdu lilah soonka haddii aynan gabadhu ogeyn in ninkii guday iyadaa lagu leeyahay weli waajibkii si loogu lahaa ilaa wax la hubo la helo in lagu leeyahay baa la hubaa alyaqiinu laa yazuulu bishak wax la hubo hubaal baa looga tagaa in soonka aynan soomin qadana lagu lahaa waa la hubaa in ninkii wax bixiye lama hubo weli waa lagu leeyahay saa darteed gabadhu hadday awoodo soonka way qadayn haddaynan qado awoodinna maalintiiba hal miskiin bay wax siin cunno bisilla waa siin kartaa hadday cunno caydhiina rabto inay siiso maalintii waa 625 garam way koleetar waa haysataan sooma 625 garam 30 maalmood ku dhufo soo 18 kiilo ma inay 18 kiilo taan u malaynayaa ينو حسابي 625 جرام ويمس
19 wax dhiman wey. marka intaa 625 garaam baad maalintii bixin. 625 garaam say ku timid waxaa la bixiyaa culammadu ay ka hadlaan waxay waagi hore mud ama kooba u yaqiineen. koobaduna waa suuska rubuci, waa rubuc suus. suuska zakaatulfitriga lagu bixiyo yaa wuxuu dhigmaa 4 koobo ama 4 mud. marka halka mud waa rubuc 25% waay. suuskii hadda aan ku bixinaynay zakaatulfitrigii waxaa isku celcelis lagu qiimeeyey 2 kiilo iyo badh. 2 kiilo iyo badh maxaa rubuc u ah? 4 u qaybi 2 kiilo iyo badh ama 2500 garaam 4 u qaybi imisuu noqonayaa rubuci? waxaan filayaa 625 mudkii haddaba saasuu 600 xisaab ahaan sidaasay ugu imanaysa. wabilaahi towfiiq. jazaaka allahu khayran sheekh waa qof dumara waxay tiri hooyaday baa ila joogta, waxay dhigataa dugsi qur-aan iyo luqadda ingilishka, waxayna noqon jirtay 2 waqti, waxay u kala noqon jirtay 2 waqti oo labada gelin ah, waxayna qabtaa madax xanuunkaa dartii baa uga joojiyey 2 gelin mid ka mid ah oo ah gelinkii qur-aanka, ingiriiska bas bay aadaa, cuqubo miyaa iga imaanaysa? alxamdulilah. طabcan waxaan filayaa hooyadii baa ila joogta, dan iyo duruufun baa jirta, da'daa ku qasbaysa inay hadda luqada ingiriisa barato. kolba gabadhu mayna noo faahfaahinin, laakiin waxaan filayaa waxun baa jira qasbaya. waxba qur-aanka in la aada qasab ma ahee gurigaba ugu dhiga, gurigaba ha loogu dhigo. laakiin in qur-aankiina daaqada laga tuuro, waayeel qur-aankii iska tuurayo ingiriis baranaya ha noqonine, hadday taqaanana dee iyadaaba iska akhrisan karta. hadday inay barata u baahan tahayna gurigaba waa lagu bari karaa. haddii dad la waayo cajalada macallin arday u meelinayaa oo ku celceshan kartaa jira. qur-aanku qadarka salaada lagu tukadana waa fardu cayn waajiba weeye, qofkii tukanaya salaad ku waajibtay. qadarka ka badanna waa fardu kifaayo, ummadda qayb taqaana in la helo weeye. haddii qayb taqaana la helana dadka inta kale sunno weeyeoo hadduusan baranin qofku dembi maaha. qof kasta waajib kuma aha, laakiin ummadda qayb taqaana waa in la helo. dabcan ingiriiskuna waajib maaha, ma sunna isaga in la barto? mudnaanta qur-aankaa leh, laakiin tan kalena dan iyo duruuf hadday jirta dembi ma aha. laakiin haddana qur-aankiina la dayicine cajaladaha video oo laga bartaa jira, meelo websaytyo oo laga dhegaystaa jiro, oo maqal iyo muuqaal laga daawado, cajalada la dhegaysto oo laga daba akhriyaa jira. xeelad lama waayo, qur-aankiina lagu sii wadi karo. iyada gabadhuna hadday qur-aanka taqaano hooyadeed ha ka caawiso, kana danta jirta ha barato. bilaahi towfiiq. baarak allahu fiik, jazaak allah khayr sheekh. su-aasha ugu dambaysa sheekh waa su-aal famili ah. sheekh wuxuu yidhi xaaskayga oo aan ka qubaysanin dhiigga ayaan uu ka go-ay, dhiigga uu ka istaagay, laakiin oo aanan weli ka qubaysanin baan u galmooday, maxay diintu ka qabtaa? alxamdulilah. gabadhu markay caadada qabto ninkeeda xiriir gogoleed lama ogola. caadadu markay ka goodo ilaa ay ka qabaysatana lama ogola. wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiidi walaa taqrabuuhunna ha u dhowaanina xataa yaطhurna ilaa uu dhiigu ka go'o. faidaa tataharna hadday ka qabaystaan faatuuhunna markaa xiriirkiinni sameeye. marka gabadhu wakhtiga u dhaxeeya in caadadii dhiiggii ka go'ay iyo qabayska inta u dhaxeeya axkaamta sharciga qayb loo ogol yahay oo soomka inay niyooto iyaa jira, laakiin xiriirka gogosha lama ogola. haddii uu sameeyey 2 arrimood baa laga rabaa. kow, dembi buu galay, ilaahay inuu u towbad keeno oo ilaahay u soo laabta waa laga doonayaa, dembi dhaaf weydiisto. midda labaadna waxaa laga rabaa sadaqa inuu la baxo. qadar go-an ma laha,
laakiin dee qof iyo taagtii weeye